maanta waxaan joogaa sheekh ma sha Allah sheekh Ali sheekh Ibrahim sheekh Abubakar ما شاء الله ما شاء الله أدي دوق فحصنا هذا كلن كاجا طبعا أصحاب هذا أدي دوق سلامية اسطنبول أيام جوجنا ما شاء الله الله ينحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا سلام كوري همين وناكسن مالين وناكسن جمعة وناكسن وفرح حلن وكاعو سنة يا سبسكرايب يا لايك هديت أمرك ورسي سو بوقته وأنا ما سمتهاي maanta waxaan doonayaa in bilaabo taxane aan kaga hadlayo Soomaalida maxaa Turkiga looga nacay taxanas doonayaa in bilaabo marka waa bartuwan marka maadaama bartuwan ay tahay waxaan rabaa inaan dib inii celiyo taariikhda hormay bilaabatay in Turkiga laga tahriibo sida Soomaalida Turkiga ku soo heshay taasaan doonayaa inaan dib inii sheego kabacdi waxaan samayn doonaa insha Allah part 2 part 3 wax kastana meeshaan baa kaga bogan doontaan sababta Soomaalida Turkiga looga nacay looga soo tarxiilay maanta haddaad magaalada Istanbul tagto oo centerka ku socoto Aksaray iyo Yusuf Pasha iyo meelahaas oo dhan waxaa laga yaabaa inaad qof Soomaali ku arkin halka sanadkii 2022 iyo 2021kii Soomaalidu aad loo buuxay marka maxaa keenay in Soomaalidu yaraato maxaa Soomaalida loo nacay horta marka laga hadlo taariikhka Soomaalida ee Turkiga sidaan xogta ku hayo anigu horta in badan kamid ah bulshada Soomaaliyeed Turkiga ku nool kamid ah jaaliyadda bulshada Turkiga ku nool in badan sidaan xogta ku hayo xogtan ku helay in Turkiga laga tahriibo Soomaalidu tahriibaan waxay bilaabatay 99kii sida uga sheekeeyay nin aan saaxiib ahayn oo reer Holland ah laakiin markii dambe aan isku barnay Istanbul kaasoo iga sheekeeyay inuu 99kii Turkiga tahriibay uu Greek galay markaasuu ii sheegay Soomaalidu in Turkiga laga tahriibo waxay bilaabatay 99kii 98 meelahaas marka waxaan doonayaa inaan dib u celiyo sida ay ku soo bilaabatay iyo sida loo helo wadadan Turkiga ayaan doonayaa dib u celiyo marka waa sheeko dheer sida ognahay markii dalka burburay 99kii Soomaalidii waa la kala yaacay meel ka duwan loo yaacay tahriib baa la aaday waa la yaacay marka dad fara badan ayaa waxay soo galeen Yamanta iyo Sacuudiga marka dadkii Sacuudiga inta badan tagay ayaa waxay heleen chance ah in wadanka Suuriya laga helo qaxooti marka dad fara badan oo Sacuudiga ka yimid ama Yemen ka yimid oo Carabaha ka yimid ayaa waxay tageen Suuriya deetana halkaas bay wax ka noqdeen qaxooti ka noqdeen marka dadkii Suuriya tagay ee Suuriya halka qaxooti ka noqday markay wadanka xoogaa fahmeen oo jawi la qabsadeen ayay waxay arkeen inay jirto fursad Turkiga macnaha loo sii gudbi karo oo Turkiga xitaa bariga qaxooti fiican buu lahaa marka dadka Suuriya tagay u horeysay Soomaalida qaxooti ka noqday ayaa chance waxay heleen ah in Turkiga markaas loo sii gudbi karo dadkii baa deetana Turkiga u sii gudbay oo Turkiga tagay oo qaxooti ku noqday markaas la sheegay dadkii u horeysay Soomaalida Turkiga qaxooti ku noqday way iska joogeen haddana ayaama ka bacdi markay joogeen oo dadkii Turkiga la qabsadeen oo meel kala duwan joogeen oo qaarkood dibadda macnaha loo sii qaaday ayay haddana waxay fahmeen in magaranaysaa chance jiro Turkiga laga sii bixi karo oo Greek la aadi karo marka chance waayo bariga telefoon ma jirin waxyaalaha fara badan ma jirin adduunku iska xirnaa marka yani information macnaha wuu yaraa marka chance waxaa soo baxay ah dadku heleen in magaranaysaa Turkiga laga sii bixi karo marka sida xogta lagu hayo dadka uuriyay ee Turkiga tagay Soomaalida qaxootiga iska dhiibay dadkaas soo helay in Turkiga laga bixi karo marka Soomaalida markay fahmeen yani horta bariga Soomaalida Turkiga markay noqoto taariibka waxaa la sheegay in aad u yaraayeen macnaha aad u yaraayeen number aad u yaraayeen laakiin sida la sheegay 2006dii wixii ka dambeeyay ayaa dadku waxay fahmeen in wadanka Suuriya lagu iman karo passport Soomaali marka barigaas aan ognahay ma jirin passport Soomaali oo sax ah waxaa jiray passport ciyaaran oo sawir loo dejiyo marka dad fara badan waxay fahmeen in passportka Soomaaliga Suuriya lagu iman karo marka maadaama Suuriya lagu iman karo dad fara badan ayaa toos Soomaaliya uga soo duulay meel kala duwan ka yimid baa Suuriya ku degay marka dadka markay Suuriya yimaadeen laba nooc ay noqdeen marka qaybna Suuriya iska joogtay oo qaxooti ku noqotay qaybna way ka soo gudubtay oo Turkiga yimaadeen kuwii Turkiga yimid ayaa haddana waxay noqdeen laba nooc oo qayb qaxooti iska dhiibtay
iyo qayb kasii gudubtay. Markaa taariikhdan Turkiga in laga sii baxo waxaa aad loo barto, aad loo fahmay 2007, 8, 9, 10 markaasoo dad fara badan oo Soomaaliya ay Suuriya kasoo degeen, deetana ay dhulka soo mareen, deetana ay Turkiga si dhulka kasoo galeen ay toos u baxeen. Markaa waqtigaas aad u badatay inkastoo bariga Liibiya ay kacsan Liibiya shineed, haddana dad fara badan ayaa xaggan soo mari jiray. Waana marka Soomaalida u badan Greek ay tagtay waa 2008, 7, 6 Soomaalida u badan Greek markaas tagtay. Markaa 2008, 9, 10 waa waqtiga ugu badnaa ee la fahmay in Turkiga laga bixi karo. Runtii dad badan ay ka baxeen. Dadkii ugu badnaa ka baxay waxay ahaayeen dad Suuriya kasoo gudbay iyo dad marka hore Turkiga joogo qaxooti ku hayo sii gudbay. Markaa sida saxda ah ee taariikhda lagu hayo waa sidaas in Turkiga laga taariikh xilligaas bilaabatay, heerkaas soo martay ilaa 2011 ra'iisul wasaare markaas oo Erdogan ahaa waddanka yimid magaranaysaa aqoonsaday baasaboor Soomaaliya aqoonsaday. Kabacdina 2011 ay bilaabatay in Soomaalidu toos ay u tagaan Turkiga. Markaas taariikhdu si xoogaystay. Markaa qisada oo kooban waa sidaas ayuu ku bilowday. Markaa 2011 wixii ka dambeeyay xiriirka Soomaaliya Turkiga wuu fiicnaaday. Runtii Soomaaliya Turkiga way jeclaadeen, waa la aaminay. Runtii wuxuu noqday baasaboor Soomaaliya baasaboorka Afrika Turkiga laga qiimeeyo ugu fiican buu noqday. Laakiin Soomaalidu runtii way ku ciyaareen. Markaa qisooyinka dambe waxaan doonayaa part 2 kale inaan kaga sheekeeyo. Waxaan doonayaa kaga sheekeeyo part 2 Soomaalida sababta loo nacay iyo ayagoo qiimahaas la siiyay heerka la gaarsiiyay. Anigu Istanbul waxaan joogay ama Ankara xitaa aan joogay iyadoo askartu wadooyinka ay taagan yihiin dadka qabanayaan, laakiin dadka Carabta ama dadka jirka cad kale ay qabtaan. Dadka Carabta, Afganistaniyiinta bas ay qabtaan. Laakiin qofka Soomaaliga aan shuqul lahayn duma halkaas ka mariyo. Anigaas 100 mar ugu dhacday. Ano mall soo baxay inaan arkay dad magaranaysaa meel saa lagu hayo badan oo la qabtay ama la qabanayo booliisku qabanayaan anaguna iska soo agmarnay. Markaa Soomaalidu waxay joogeen magaranaysaa xorriyada la ixtiraamo la jecel yahay bay joogeen. Yani qofka Soomaaliga ixtiraam Turkiga leeyahay. Laakiin waxaasoo dhan way ku ciyaareen. Safaaradda Soomaaliyana way kaga sii dartay oo dadkii waxay tiri hal tarxiilo. Markaa waxaasoo dhan waa idin hayay asxaabay. Subscribe like isaara channel ka mid noqo waan mahadsantihiin. Waa farxad weyn waxaan ku soo bandhigayaa xaqiiq kasta. Waxa kale wax ka badan waa subscribe iyo like. Wixii fikirkaadan comment igu reeb waan mahadsantahay. Qof kasta istaan maxaa subscribe waa inoo part 2 iyo anoo bilaabaya sababaha Soomaalida Turkiga looga nacay. Waxaan u taaban doonaa mid waxa laga yaabaa waxa ka daawateen Solar Portal waqtiga uu ka sheekeynay 2021 Turkiga way joogeen. Mall history mall baasha ka caawinayna asaga. Yani waqtiga Solar Portal ka sheekeynay xaaladaha Soomaaliga ugu nacayna. Runtii ana maanta waxaan leeyahay yani wixii kooban Soomaaliya waxa Turkiga looga nacay. Hadda maalinta waxaan daawanay gabar ku nool Masar oo leh Soomaalidu Turkiga Soomaalidu Masar wax ku soo wadaa halka Turkiga. Soomaaliya waxaan leeyahay ilaa ka baqa xishooda. Waddan kasta iska xirnaa foodada iyo falishaada iyo buuqa joojiya. Markaa saxaabay la socda part 2 ayaan runtii kaga hadli doonaa waxyaalaha keena Soomaaliya in la naco Turkiga la karaasado markaa la soo tarxiilo. Waxa ognahay sanadihii 2023, 22, 21 kumanaan Soomaaliya bal soo tarxiilo oo xamar la keenay. Maxaa sababay iyadoo 20 iyo 2019 Soomaaliya jeclaa si